kalfadhigii maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayna ka soo xaadireen koob iyo konton mudane oo kamid ah 82 mudane oo ka kooban yahay golahaasi ayaa waxay maanta mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland cod aqlabiyada ku ansixiyeen xeerka booliiska Soomaaliland oo dib ugu soo celiyeen mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland xeerkan booliiska Soomaaliland oo maanta ay u codeeyeen 40 mudane halka 10 mudane ay ka aamuseen gudoomiyuhuna aanu codeen ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ku dhawaaqay natiijada doorashada xeerkaasi ayaa waxa uu yiri 40 mudane oo golaaday ilaa ansixiyo xeerka ciidanka booliiska xeer number 63 cidii deema jirto 10 mudane ka aamusay gudoomiyuhu mu codaynin sidaas uu ku ansaxay xeerka ciidanka booliiska geesta kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay guddi ka kooban 5 xubnood oo garyaqaan isla markaana iyagu baadhi doona dilkii fashilmay ee la isku dayay in lagu khaarijiyo xildhibaan Maxamed Faarax Qabile oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana arrintaas ay dib ugu soo celiyaan golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo isaguna arrintaas mar kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan kaloo halkan kaga dhawaaqayaa sala socoteen waxaa jiray isku day dil oo loo geystay mudane ka tirsan golaha wakiilada mudane Maxamed Faarax Qabile marka waxaan magacaabayaa guddi arrintaas soo baadha golahana ku soo warcelisa guddigaasi waxay ka kooban yihiin garyaqaan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac garyaqaan mudane Ibrahim Jaamac Ali Beyte garyaqaan mudane Maxamed Saalax Cige mudane Xamse Maxamed Gaadaweyne iyo la taliyaha sharciga mudane Mustafa Maxamed Cabdilaahi Daahir oo caawin